رمضان كريم داوديال كسر دواده برنامج كمان تي عيارها محاكاة عصوف فضلا هذا تاي صاحب نقول عصوف جنة الكي سبسكرايب ده شير لايك كومنت كمان مرنا أي نكون بلاون مانشستر يونايتد أيام للحريرين يا ودقائق حد جرير جابونه كواحد ريال فضل الدليل الدافع كده لواتني كوجير كم محمد سلازو سيد أوريست ذاس وريان كيف تونه ماكس ومويس كين موسى كين oo 20 sano jira ayaa la xiriirinaya inuu u wareego Napoli xidiga Talyaaniga ayaa ciqaab kala kulmi doono kooxda Everton kadib markii uu jabiyay sharciga xakamaynta caabuqa coronavirus sidii ay warisay Corriere dello Sport ee ka soo baxda dalka Talyaaniga Arsenal ayaa soo bandhigtay xidiga garabka ka ciyaara ee Chelsea William Borgas oo 31 sano jira isagoo noqonaya beddelka Pierre-Emerick Aubameyang laakiin Gunners ayaa waxa amaka ku noqday dalabka mushaarka ee xidiga reer Brazil sidii ay warisay The Sun Arsenal ayaa dalab gaaraya 43 milyan oo gali waxay ka gudbisay xidiga qadka dhexe Atletico Madrid 26 sano jirka Thomas Partey sidii ay warisay Daily Express Barcelona ayaa suuqa kala iibsiga soo dhigtay xidiga qadka dhexe reer Brazil ee Philippe Coutinho Orianka Francisca ee Ousmane Dembele iyagoo diyaar u ah inay ciyaartoy kale ku soo bedeshaan xagagan sida ay warisay The Telegraph Chelsea ayaa xiisaynaysa Coutinho laakiin waxay haatan bartilmaameedsanaysaa xidiga qadka dhexe Bayer Leverkusen oo 20 sano jira ee Kai Havertz sida ay warisay The Athletic West Ham United ayaa laga qasbi karaa inay iibisay xidiga qadka dhexe ee England ee Declan Rice si ay lacag uga helaan iyagoo xiisaynaya kooxdiisii hore ee Chelsea ee Manchester United Telegraph ayaa warisay Arsenal ayaa sidoo kale la xiriirinayay 22 sano jirkan Rice kaasoo lagu qiimay 70 milyan oo gini sida ay warisay The Sun Liverpool ayaa ugu cadaxday xiisaha weeryahanka Lille ee Victor Osimhen oo 21 sano jira inkastoo Leicester City iyo Chelsea ay sidoo kale xiisaynayaan xidigan reer Nigeria sida ay warisay The Lefort Mercato agaasimaha Borussia Dortmund ayaa sheegay in kooxdiisa aysan walwal ka qabin mustaqbalka Jadon Sancho xidiga reer England oo 20 sano jira ayaa la xiriirinayay inuu u dhaqaaqo kooxda Manchester United si kastaba United ayaa diyaar u ah inay iibiso labada xidig ee qadka dhexe ee Paul Pogba iyo Jesse Lingard si ay lacagtooda ugu isticmaasho xirigelinta Sancho sida ay warisay The Sun xidiga Spanish ee qadka dhexe Dani Ceballos ayaa sheegay inuu rajeynayo inuu ku laabto Real Madrid markuu amaahdiisa Arsenal ku dhamaado sida ay warisay Foster tababariye hore Spurs iyo Chelsea Andre Villas-Boas ayaa sheegay inuu san weligiis ku soo laaban doonin horyaalka English Premier League hore Liverpool iyo xulka qaranka ee Republic of Ireland Major Robertson ayaa geeriyooday isagoo da'diisu tahay 61 sano jir Robertson oo sidoo kale u soo ciyaaray kooxda Manchester City isla markaana tabiye TV oo caan ah ayaa laga helay kansarka maqaarka sanadkii 2018 Robertson waxa uu ku guuleystay koobka UEFA Champions League maanta loo yaqaan horyaalka Ingiriiska iyo League Cup xilli ciyaareedkii 1983 ilaa 1984 markaas uu ciyaaray jiray kooxda Liverpool waxa uu 113 kulan u saftay kooxda Brighton halka uu sidoo kale u ciyaaray Preston kooxda Isbaanishka ee Osasuna ka hor intuusan ciyaaraha kaga fariisanin QPR Robertson wuxuu dunida kaga tagay xaas iyo laba caruur oo lagu magacaabo Liam iyo Ayami waxa uu dhaliyay 4 gool 24 kulan oo saftay xulka Ireland intii u dhaxaysay 1980 ilaa 1986 kor inta uusan noqonin shakhsiga laga jeclaado TV-yada iyo xitaa wararka qaar Atlanta waxa uu codeeyay filimkii caan baxay ee Shrek qaybtiisa Isbaanishka Liverpool ayaa ku soo qortay boggeeda rasmiga ee Twitterka waxaan si weyn uga xunnahay geerida ciyaaryahankii hore Major Robertson oo 61 sano jir ah qof walba oo Liverpool ka tirsan waxa muruga ku qasbaysaa qoyska iyo saxaabtiisa Major maadaama Isbaan si weyn loo jeclaa sabab la xiriira shakhsiyadiisa TV-yada iyo aflaamaha ka Real Madrid Sergio Ramos ayaa kamid ah dadkii ugu horeeyay ee ka tacsiyay geeridii Robertson waxa uu Twitterkiisa ku soo qoray nasiib ayaan u lahaa inaan la kulmo Major Robertson wuxuu tacsiyo u dirayaa qoyskiisa iyo saxaabtiisa Cesc Fabregas ayaa asigana Twitterkiisa ku soo qoray weligeen saaxiib ayaan ahaan doonaa nabad ku naso ayuu ku soo gabagabeeyay Cesc Fabregas oo tacsiyeynaya halyeegii hore kooxda Liverpool ee Major Robertson Arsenal ayaa la soo bandhigay fursad ay kula wareegi karto xidiga garabka uga ciyaaray Chelsea ee William Borgas si uu u noqdo beddelka Pierre-Emerick Aubameyang sida ay qortay saaka jasiiradda The Sun laakiin Gunners ayaa haatan isku dayaysa inay hoos u dhigto dalabka qandaraas ee William Kazo si xor kaga tagaya Chelsea xagagan
xidig reer Brazil ayaa dalbanaya qandaraas 3 sanadood iyo in la siiyo mushaar la mid ah kan uu haatan ka qaato Chelsea ee gaaraya 220 kun oo geni isbuuci. Arsenal oo dhaqaale xumo ku soo wajahday ayaa isku xayjinaysa inay heshiis 3 sanadood ka ogolaato ciyaaryahan 32 sano jirka noqonaya bisha Agoosto. laakiin wakiilka William lagu magacaabo Kea Chorobayo ayaa ah nin saameyn weyn ku leh Emirates Stadium. wuxuu sidoo kale wakiil u yahay agaasimaha farsamada Gunners Edu. wuxuu qayb ka ahaa wadahadaladii lagu soo xirigeliyay David Luiz iyo Cesar Soares. wuxuu haatan raadinayaa inuu dhameystiro heshiiska William Burgess kaasoo 32 milyan oo geni Chelsea kugu soo iibsatay sanadkii 2013 markii ku soo wareeyay kooxda Rooshka ee Azani Machakala. William ayaa durbadiiba diiday qandaraas 2 sanadood ah oo ku soo mandhigtay Chelsea. waxa uu sidoo kale soo jiidanaya xiisaha Liverpool iyo Inter Milan, laakiin wuxuu doorbidayaa inuu sii joogo London. waxaa macquul ah inuu ogolaado inuu hoos u dhigo dalabkiisa qandaraas si uu ugu biiro kooxda Arsenal. Tobraha Arsenal Mikel Arteta ayaa haatan ogsooniin inay qasab tahay inuu iska iibiso kabtanka hore waa kabtanka haatan ee biyaha Ebriga Aubameyang xagaagan. xidiga reer Gabon oo 60 milyan oo geni ku yimid Arsenal ayaa galaya sanadkiisii ugu dambeeyay qandaraaskiisa waxa uu diiday inuu saxiixo qandaraas cusub. Arteta ayaa go'aansaday inuu iska iibiyo biyaha Ebriga Aubameyang badalka kooxdu si bilaash u kaga tagi lahaa xagaaga soo aadan. Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay wada hadal la furtay waryahanka Lille Victor Osimhen kaasoo sidoo kale la xiriirinayay u dhaqaaqista kooxaha Manchester United iyo Chelsea. 22 sano jirkan ayaa kaliya kaga soo biiray kooxda Lille naadiga reer Belgium ee Colorea xagaagii hore, wuxuuna ku soo jiitay xiisaha qaar ka mid ah kooxaha qaarada Yurub ugu fiicnaa isagoo kooxdiisa u dhaliyay 18 gool isla markaana caawiye ka 6 caawin 38 kulan u saftay tartamada oo dhan. kooxo badan oo Premier League ayaa la fahansan yahay inay ka mid yihiin kuwa isha ku haya waryahanka oo ay ku jiraan Manchester United, Chelsea, Arsenal, Leicester City, Everton. si kastaba ha noqotee majalada Luton Sport ayaa sheegaysa in Liverpool ay haatan hogaaminayso loolanka lagu jiro saxiixa iyagoo bilaabay wada hadallo ay ku yeeshaan wakiilada ciyaaryahankan. Lille ayaa loo maleynayaa inay ku rabto ciyaaryahanka heerka caalamiga dalka Nigeria lacagtan 80 milyan oo euro oo u dhiganta 69.7 milyan oo geni. inkastoo taas ay cadeyn u noqon karto wada hadallada iyadoo la tixgelinayo saameynta faafaha coronavirus ee dhaqaalaha kooxaha. Liverpool ayaa sidoo kale si xooggan loo xiriirinaya weeraryahanka RB Leipzig ee Timo Werner iyadoo Joey Halab uu muuqdo inuu si diirsaday qaabkiisa weerarkiisa. sida wararku ay sheegayaan kooxaha Manchester United, Real Madrid iyo Juventus ayaa waa iskula dhagan saxiixa xidiga ka tirsan naadiga ka dhisan dalka Holland ee Ajax. jasiiradda Mundo Deportivo ayaa warinaysa in kooxaha Manchester United, Real Madrid iyo Juventus ay dhamaantood xiiseynayaan saxiixa laacibka qadka dhexe ee Ajax ee Donovan jirkan ayaa u muuqda inuu ka tagay xagaagan garoonka Johan Cruyff Arena, waxaana laga yaabaa in lagu heli karo ku dhawaad 50 milyan oo euro 44 milyan oo geni ama 54 milyan oo dollar. oo dhaqaaqaysta Manchester United ayaa noqon karta xulashada ugu soo jiidashada badan ee Van de Beek maadaama laga in loo damaanad qaadi doonin si joogto ah ugu ciyaara kooxaha Real Madrid iyo Juventus. sida warbixinada ay tilmaamayaan ciyaaraha Olimbikada ee Tokyo ayaa la qorsheenayaa in la kansalo haddii faafaha cudurka coronavirus uu sii socdo ilaa sanadka soo aadan. haddii dhibaatada coronavirus ka adduunka ay la xakameyn sanadkaas dambe ciyaaraha Tokyo ee 2020 oo horey loo qorsheynaya bisha July sanadka 2021 waxaa la kansali doonaa sida waraysigu ku sheegay madaxweynaha guddiga qabanqaabada. isagoo la hadlay wargeyska maalinlaha ee reer Japan ee Nekas Sports, madaxweynaha qabanqaabada Yoshida Mori wuxuu meesha ka saartay in 2022 Olimbikada dib loo dhigo wixii ka dambeeya 2021 haddii COVID-19 waa cudurka coronavirus uu weli waa khatar ku sii yahay adduunka sanadka soo socda. ciyaaraha Olimbikada ma dhici doonaan gabi ahaanba ayuu yiri Yoshida Mori. xidiga qadka dhexe reer Spain Dani Ceballos ayaa shaaca ka qaaday in ciyaartoyda Arsenal ay hayeen astaamaha calaamadaha caabuqa coronavirus kadib markuu cudurkan laga helay macallin Mikel Arteta laakiin aan laga baarin.
Arteta ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee ku sugan Premier League ee laga helay cudurkii bishii Maars waxaana la hakiyay ciyaarista kubadda cagta tan iyo markaasi dhammaan kooxaha koowaad ee Arsenal ayaa markii dambe la karantiilay 2 toddobaad laakiin Ceballos oo la hadlayay Movistar ayaa haatan shaaca ka qaaday in ciyaartoy dhowr sidoo kale la hayeen astaamaha caabuqa coronavirus waxaa soo toosay subaxdii waxaan arkay Mikel Arteta oo baaritaan lagu sameeyay isla markaana laga helay ayuu yiri Daniel Ceballos kooxda waa la karantiilay waxaa jira ciyaartoy leh astaamaha caabuqan laakiin dhammaanteen waan fiicannahay iyaguna nama aysan barin waxaan ku dadaalaa sida ugu fiican aan karayo way adagtahay in qoys laga fogaado halkan waa England waxaan ku socon kartaa dariiqa si sahlan oo aad ku tagi kartaa jimicsi maalintiiba sida wararku ay sheegayaan ciyaaryahankii hore ee ku fashilmay Chelsea ee Temi Bakayoko ayaa bartilmaameed u noqday naadiga Paris Saint-Germain suuqa kala iibsiga xidigaha wargeyska The Sun ayaa warinaya in flopkii hore ee Chelsea Temi Bakayoko oo si lama filaan ah diiradda kugu fuulay kooxaha waa haysta horyaalka Ligue 1 Faransiiska ee Paris Saint-Germain لاعبka qadka dhexe Chelsea kaasoo hadda ama ugu ciyaara naadiga Monaco ayaa ku guuldareystay in si wacan kaga soo muuqdo bilowga waayihiisa garoonka Stamford Bridge tan iyo markii uu ku soo biiray sanadkii 2017 Bakayoko ayaa xilli ciyaareedkii hore ku qaatay AC Milan wuxuuna haatan ku laabtay kooxdiisii hore ee Monaco halkaasoo magaciisa kor waa wariyaanka kooxda kubadda cagta ee Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu maanta u safri doono dalka Talyaaniga ka hor bilaabashada tababarka kooxdiisa Ronaldo ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus calaqadeeyay dunida waxa uu ku sugnaa magaalada uu ka soo jeeday ee Madeira ee dalka Portugal si kastaba ha ahaatee majalada Record ee ka soo baxda Portugal ayaa daabacday in maanta Talaado ah Ronaldo uu safar u yahay magaalada Turin ee ka dhisan tahay kooxdiisa Juventus 30 sano isagoo la karantiilay ka hor inta uusan bilaaban tababarka ugu dambeynna waxaa sidoo kale lagu warsugayaa Gonzalo Higuain isna inuu ku soo laabto dalkiisa Argentina si uu u diyaar noqdo soo laabashada tababarka kooxdiisa Juventus